السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة دمانتي وين السلامة أصحابي meel kasta oo dunida dacaleda ka joogtaan wayna salaamo dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga qaaliga, walaalahayga Soomaaliyeed iyo noolaada asxaabiisii leeyahay soo lama wacno. asxaabey maanta waxaan ka hadlayaa dareenkayga ku aadan qaraxii 14 Oktoobar ee lagu qarxiyay magaalada Muqdisho. walaalahayga Soomaaliyeed wallaahi umurgaako markaan qarxaas arko kulay daran ahaanteeda shucuurteyda aad u kacdaa, waana aad u murugoodaa. waayo 700 oo qof oo Soomaaliya hadal isku meel ku naf waayay, waa murugo. marka galabta waxaa rabay dadkaas walaalahayga Soomaaliya inaan wada u tacsiyeeyo dhammaantood. ilaahay u naxariista intii dhimatay, ilaahay qabrigooda u waasiciyo. gacanka xaq daran baa dishay kolay dambi ma gelin, dad Soomaaliyeed iska shaqaysan nolol maalmeedkooda ku jiray ahaayeen. gacanka xaq daran baa dishay, ilaahay u naxariisto dhammaantood. waxay ahaayeen hooyooyin Soomaaliyeed, abayaal Soomaaliyeed, wiilal Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda wax u baranayay, gabdho Soomaaliyeed dadkooda iyo dalkooda wax u baranayay, caruur yaryar oo Soomaaliyeed dadkooda iyo dalkooda u soo korayay. kulligood waxba dambi ma gelin, waxna ma galabsan. gacanka xaq daran baa dhammaantood wada dishay. ilaahay raxmaanka waxaan ka barinayaa, wallaahi shucuurteeda galabta way kacsan tahay. nooshin baan wallaahi iska ahay. marka waxaan leeyahay dhammaantood ilaahay u wada naxariisto, jannat firdaws alla ha geeyo. naku maalin ilaahay kaani geerima u taagnaan karno. wallaahi murugo inay murugo maalin walba qaraxyada Soomaaliya ka dhaca waxaa ku dhinta hooyooyin Soomaaliyeed, aabayaal Soomaaliyeed, gabdho Soomaaliyeed, wiilal Soomaaliyeed baa ku wada dhinta. wallaahi ra'yi ahaanteyda ma jeclaan, qof kastana maanta ma jeclaan lahayn qof Soomaaliyeed inuu dhinto, laakiin gacanka xaq daran baa laysa dadkaas. ilaahay waxaan ka barinayaa inuu ummadaas dadka leynayso inuu ilaahay naga qabto, ka raxmaanka ayaan ka bariyay. ilaahay wada naxariisto. maanta waxaan rabaa inaan dareenkayga la qaato ummada Soomaaliyeed oo shucuurtooda wada kacsan tahay maanta, oo ka murugaysan oo ka tiiraanyeysan qaraxii ka dhacay Soobe. marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ilaahay hana wada badbaadiyo meel kastoo aad joogno. meel kastoo aan joognana ilaahay ha nagu xifdiyo. kuwa dalka jooga ilaahay ha xifdiyo, kuweenaan kaloo meelahan kale qurbaa iska joognana ilaahay ha nagu xifdiyo. ilaahay raxmaanka waxaan ka barinaya inuu wadankeena ilaahay noo hagaajiyo, dalkeena noo hagaajiyo, dadkeena noo hagaajiyo. kuwa dadka laynayo intaasoo qof hal mar naga dileen, ilaahay raxmaanka waxaan ka barinayaa inuu xaqa tuso oo soo hanuuniyo. ayaka dad Soomaaliyeed way habaarimeen, laakiin waxaan ka uga bariyay inuu ilaahay hadduu ilaahay hanuun u qoro inuu ilaahay soo hanuuniyo. haddii kaleeto ilaahay hanuun u qorine, waayo waa dad Soomaaliyeed kuwaas dhimanaya, iyo kuwa dad walaalahay waa dad Soomaaliyeed. inuu hadduu hanuun u qoro inuu ilaahay soo hanuuniyo, hadduusan hanuun u qorina ilaahay inuu naga qabto sharkooda. marka maanta maalin aan qofka kuley qof islaam xaq darro ku dile dadka Soomaaliyeed, hantidoodii yaa la baabi'iyay, naftoodii baa laga gooyay, wax loo reebtaba yaraatay mara. 100 qof oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro baa ku curyaantay. 100 Soomaaliyeed oo dhalinyaro baa ku dhimatay. wallaahi bilaahi waa murugo inteeda leeg. ilaahay raxmaanka waxaan ka barinayaa ummada Soomaaliyeed. meeqa maamood maanta meeqa hooyood baa ilmahoodii waa intaasoo dhan wax u soo baraayeen, oo maxaa laga yaabaa hooyo Soomaaliyeed oo jidka xataa shaah ku gadaysay cunugeeda ay ku soo barbaarisay, wax ku soo bartay ilaa heer jaamacadeed ay ku soo bartay. maalinka isdhays cunugaa maanta wax ku qabanaya laga dilay. meeqa abbaa cunugiisa intuu miis ku soo koriyay maanta laga dilay. wallaahi waa murugo inteeda la eg. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu wadankeena noo dejiyo. ilaahay waxaan ka barinayaa
intii dhimatada Soomaaliyahan Ilaahay inuu naxariisto maalinkaad cunugaaga intaad soo barbaarisid aad dhahaysid maanta waa markaa cunugaaga aad wax ku tari lahaay oo aad faraxsantahay diilaad cunugaaga maanta waa maalin wax ku tari lahaa cunugaaga markuu jaamacad ka soo baxo oo cunugaaga wax kuu barto alla cunugaaga maanta waa maalinkaad aad waxaan dhan ka nasal cunugaaga ku shaqeynaa maalinkaad saa cunugaaga u dhowranaysa haddii lagaa dilo murugo ka weyn miyaa jirta Soomaali Nabi Maxamed ay murugo ka weyn miyaa jirta wallaahi hooyo Soomaaliya ogoonimo kusoo korisay cunugeeda shaab kusoo korisay maalinkeed dhays cunugaaga wax ku tara laga dilay wallaahi murugo ka xun ma jirto wallaahi bilaa murugo wallaahi ilaahay waxaan ka baryahayaa ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay badbaadiyo ilaahay rabbi raxmaano ilaahay rabbi raxmaano ilaahay wadankeena noo hagaaji dadkeena ilaahayow dadka leenahayana ilaahay rabbi raxmaano naga qaba awoodda iskale xala xataa baydhabadeeda lagu leeyahay 25 qof ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu ilaahay qaraxa naga joojiyo oo ilaahay raxmaanka waxaan ka baryahayaa inuu wadankeena nooga dhigo meel lagu soo wada hirto oo wadankeena sidoo ahaan jiray ilaahay nooga dhigo ilaahay raxmaanka waan ka barinayaa وين الصلاة والصحابة انت سرمينا la qaybsado wallahi billaah كليب كان مانت انت صعدوا يا أصحابي فيديو هذا كشير قراية أصحابتين اللي وذاك اللي قراية سيسكرب كوسبي كليب وراي ما تصرح ما يوتيوب كايغا سيسكرب ده لاي قراية شير قراية أصحابتي هذا اللي وريق هداد wax oo qalqaldan igu aragtan asxaab iska raalaada maanta wallahi bilaa shucuurteeda aaday u kaxsantahay saarahay ma aqaan assalaamu calaykum wa salaam dhamaantiin in noolaada